wadartii marka si aan ku helno waxaan adeegsanaynaa calaamadda equal oo aan ka qorayno keyboardka labada xariiqan keyboardka waxay ku xigtaa back markaad website-yada gelaysid daniel.com camal ama djumla.com markaa geshid oo kale dubai jumla markaa geshid oo kale markaa back taabanaysid ama wararka haddaa soo akhrisid oo marka cadday.com ama gandarsha.com aa geshid oo back taaban lahayd baaggaas waxay ka xigtaa markaa hore u socodso oo kale 1 iyo 2 kan labaad waay balaas baa ku kor qoran laba xariiqan oo equalana way ku hoostaala taas baa equal ah adoo oo taabanaysid equalkaas hal mar waxaad aadaa xisaabtii uu qaatay tiradii uu qaatay qofka oo ah qaatay bay ku hoostaala 500 waaye dhagsii marka hal mar markii aad dhagsiisay kusoo laabo wadartii waxaa ku qoran b3 sababtoo qofkan wuxuu joogaa columnka b baa qaatay ku aadan tahay wuxuu xisaab ahaanna kaga aadan yahay number 3 saas waaye sababta ay b3 ku timid halkan functionkana waa ka arki kartaa b3 marka adigoon meel kale aan taaban maadaama halkan aad dhagsiisay minus oo isla equalkii dhinaca kale dhinaca ka xigta haddana minus hal mar dhagsii ka jaris waaye 500 waxaa laga jaray 200 ee uu dhiibay maadaama 200 uu qofkan dhiibay dhagsii marka minustii waxaa ku xigta 200 oo ku aadan number c kagana beegan xisaab ahaan number 3 marka waxaa ku taala halkan b3 minus c3 enter aan taabano ama functionka agtiisa calaamadda saxda ah ee ku aadan aan dhagsiino ama enter marka enter aan xulanayna maxaa soo haray 300 baa qofkan lagu leeyahay waxaa lagu yidhi waxay la mid tahay b3 oo laga jaray c3 b3 waatan oo 500 ah haddii laga jaro c3 oo 200 ah waa 300 waana sax marka kala jaristan automatically qof walba oo soo qorno automatically uga kala jaro aan dheereysano xisaabta halkaas aan ku ekayno waxaa halkan imaan kara maalan Faadumo waxay qaadatay 600 waxay dhiibtay 300 maxaa markaa Faadumo ku haray 300 baa ku haray maadaama 600 ay qaadatay 300 ay dhiibtay 300 baa ku hartay yaa xisaabiye automatically wadarta waa is xisaabaysa qaybtan kore had iyo jeerana waxaa laga dhigtaa far waaweyn oo waafiya oo arki kartid adoo taabanaya bida kore halkan ku taala muuqata oo 10kan ku xigta ama helbiga ku aadan excelka markaa joogtid bidaas dhagsii fartan way ku kala socmaysaa iyadoo ku waaweynaanaysa haddaad doonto fartan waaweyn inaad ka socdo farta kale waxaad samayn kartaa geeska intaad tagto calaamadda kalarada agteeda ku taala ee borderiska ah dhagsii waxaad ka xulataa kan ugu hooseeya kan ku xiga kan ugu hooseeya waa draw borderis kan ku xiga waxaad arkaysaa inuu 4 gees yahay oo kala jarjarayo oo calaamado madow ku aadinayo waa borderiski dhag haddaa siiso wuxuu kaaga dhigay nuucan oo kale waana kalaray kartaa si ay u kala garato kalar waxaa marin kartaa garey nuucaa doonto okay wuxuu ku noqonayaa excel xoogaa qaybtan kore inay ka duwan tahay qaybtan kale ayay ku noqonaysaa halkan aan niraahdo Saciid Shaane oo kale Saciid Shaane ayaa wuxuu ka qaatay 800 wuxuu dhiibay 250 waxaa ku leedahay Saciid Shaane 550 yaa kuu sheegay adimees wareerinaysid xisaabta wadarta unbaa eeganaysa wadartan haddaa isu geysanaysidna isu darista hore baan u aragnay oo waa highlight garanaysaa intaa rabtid inaad isu geyso hal fidqana waa ku darsanaysaa qaybta kore intaad tagto aad taabanaysaa auto sum calaamadan iida hal mar dhagsii kusoo laaba halkaagii waxaa ogaanaysaa in halkan ay taalo 150 waa markii la isu geeyay xisaabaadkaagii marka intan waxaan ku garanay maanta sidii loo kala jarayo xisaabaadka ama deen haddaa dadku leedahay lacagtii la dhiibayna ay halkan ka go'day lacagtii lagu lahaana ay ku soo darsantay dhammaanna xisaabaadkii kala goyn iyo isu daris aan u adeegsanay halkan iyadoo kula dhufashadiina aan horey usoo isticmaalna aan kusoo marnay cashirkii 3aad ee isticmaalka excel haddaba cashirkeena isticmaalka excel ee qaybta 4aad ayaan maanta halkan ku maraynaa haddaba adoo intaas ku dhamaysay faylkaagii waxaad ku save garayn kartaa adoo taabanaya save waxaa soo boodaya box
ku dhahayo save as. boxkan waxaa ka dooranaysaa meesha desktop ay ku qoran tahay ama USB gaaga ku save garaysane adoo qaybtan kore drop down box ka taabanayo. meesha desktop kaga qoran tahay oo save asna ku aadan tahay save in ayaad dhag siinaysaa. waxaa ka xulanaysaa USB gaaga ama meeshaad doonto mathalan desktop waxaad ka xulanaysaa markaas save. intaa kadib waa uu ku save garaysmaya excelkaaga. excelkii wuxuu kugu save garaysan yahay desktopka oo aad ka eegi karta iyadoo ay ku qoran tahay badanaa book 1. mathalan magaca default waa book 1 waxaad ku magacaabi kartaa adigoo rename dhahaya magaca doonta ayaa u baxsan kartaa xisaab. wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa inagu ah bahda waxbarashada ee Cumar Teacher Education Center. naga soo booqda website-keena oo ah www.omarteacher.com.